tartan quraan akhris ayaa lagu qabtay dalka Tansaaniya kaas oo ay ka soo qayb galeen wadamo badan oo kamid ah qaaradda Afrika oo Soomaaliya ay kamid tahay waxaana kaalinta koobaad galay wiil Soomaali ah oo ka soo jeeda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana arintaasi soo dhaweeyay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed aad ka socota dawladda Cumaan ayaa deeq raashin u qaybisay dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Doolow ee gobolka Gado gudoomiyaha mucaaradka ee wadanka Raashiya ayaa xabsiga la dhigay kadib markii lagu eedeeyay inuu ku lug leeyahay dibadbaxyo ka dhacay maalintii shalay wadanka Raashiya xilaalyaha guud ee wadanka Mareykanka ayaa hortagay Koongareeska Mareykanka isagoo isla markaasi wax laga weydiin doono in Raashiya ay ku lug lahayd doorashooyinkii ka dhacay wadanka Mareykanka intaas daawadayaal qodobada wararka ugu dalka roon imikii haatan ku soo dhawaada faafahinta qodobada wararkaasi tartan quraan akhris ayaa lagu qabtay dalka Tansaaniya kaas oo ay ka soo qayb galeen wadamo badan oo kamid ah qaaradda Afrika oo ay Soomaaliyana kamid tahay waxaana kaalinta koobaad galay wiil Soomaali ah oo ka yimid magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose taas oo farxad gelisay guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed si faafahinta warkan nagu soo dirayo wariyaheena Cabdi Fataax Jaamac Mire wala yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا waxay ahayd maalin aad u farax gelisay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan dunida kadib markii tartan caalami oo Quraan Kariimka lagu qabtay magaalada Dar es Salaam ee dalkaasi Tansaaniya oo kaalinta koowaad ka galay Maxamed Cabdullaahi Aadan oo ah wiil Soomaaliyeed oo da'diisu aad u yar tahay wiilkaas ayaa la gudoonsiiyay markii uu guuleystay lacag iyo abaalmarino aad u qaali ah السابق الأول الفائز البطل اليوم الشاب من الصومالي محمد عبد الله عدن tartanka Quraan Kariimka ayaa waxaa ka soo qayb galay in ku dhow 20 dawladood oo Afrika ka kala socday waxaana soo qaban qaabiyay tartankan caalamiga ah Quraan Kariimka Sheekh Cabduqaadir Maxamed Axmed Al-Ahdali oo ah aasaasaha markaska Al-Xigma xaruntiisu tahay magaalada Dar es Salaam ee dalkaasi Tansaaniya isbartiwada ama garoonka kubadda cagta Dar es Salaam qaadaha 25 qof dadkii way buuxiyeen sanadkii kan ka horeeyay sidoo kale meesha aan ku qabanay laakiin sanadkii ka horeeyay ay dadkii buux dhaafayay oo dad kala bar ayaa noqday oo kuraas waayay xaqiiqatan waxa markaas dawladda ka dalabnay garoonka kubadda cagta ugu weyn oo qaada 65 qof in la siiyo dawladda wayna siisay waagii bilaano waxaan u qabanay Tansaaniya gudaheeda kaliya kadib fikrada ay timaaday inaan qabanno Kenya aan macnaha ka qayb galino Kenya iyo Tansaaniya iyo Uganda kadib waa ku darnay xaqirna 5 dawladood kadib sanadkii ugu horeeyay 9 dawladood ay ahaayeen sanadkan waxaan ku darnay 6 dawladood sanadka waxay ahaayeen 15 dawlad ay ahaayeen waxaan u hambaleynayaa shacabka Soomaaliya meel kasta ay joogaan
waan u hambalyeynaya waxaan ugu hambalyeynaya horta waxay tahay wiilkaas Soomaaliga ah ku guuleystay meesha magaca Soomaaliya ayuu sare u qaaday waxa Ilaahay ka baryaa subhanahu wa ta'ala waalidiintiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu maalinta qiyaama taaj inuu u xiro tartankan ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Tanzania Kassim Majaliwa qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanadaas dalkaas Tanzania waxaa kaloo ka soo qayb galay madaxweynihii hore ee dalkaasi Tanzania Xaaji Cali Munye diblomaasiyiin ka kala socda safaaradaha oo ay ka mid tahay safaaradda Soomaalida ee dalkaasi Tanzania konsulka safaaradda Soomaalida u fadhiya dalkaasi Tanzania mudane Cabduqaadir Maxamed Yuusuf Burgal iyo qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa u tahniyadeeyay Maxamed Cabdullaahi oo ahaa wiilkii ku guuleystay Cabdifataax Jaamac Universal TV Dar es Salaam Tanzania hay'ad ka socoto dawladda Cumaan ayaa raashin u qaybisay dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Dowle ee gobolka Gado si faafaanta warkan nagu soo diray wariyaheena Baashade degmada Dowle Soomaaliya ee gobolka Gado ayaa maanta raashin afurina loogu qaybiyay 500 oo qoys oo danyar ah kuwaas oo inta badan ka soo barakacay abaarihii ka jiray dalka raashinkan oo isugu jiray bur bariis saliid sankor iyo timir ayaa waxa uu ka yimid dawladda Cumaan ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay wakiilka dawladda Cumaan ee u soo wakiilatay raashinkan afurinta iyo xubin ka mid ah guddiga abaaraha degmada Dowle dhanka kale waxa ayagana goobta ka hadlay dadkii ka faa'iideystay raashinkan afurinta waxayna u mahadceliyeen dawladda Cumaan Ilaahay baa mahad iskale waxaan joognaa gobolka Gado gaar ahaan degmada Dowle waxaanu ka qaybinaynaa sadaqadii ay soo dhiibeen saldanada Cumaan Ilaahay baa mahad iskale awalan waxaan kale u mahadcelinaynaa boqorka iyo shacabka reer Cumaan waxaan kale u mahadcelinaynaa hay'adda khayriga ah ee Oman Charity Organization oo uu madaxda ka yahay Zaki laba goobood baa lagu bixinaya goobtan oo goobtii koobaad waxaa ku qaadanaya 500 oo qoys oo barakacayaal ah isugu jira dad barakacayaal dad maata dad dhibban oo qofka kale ka daran yahay la soo xulay ADBski uu dhibta badnaa waa 500 oo qoys way ku noolaadeen waxay qaadanayaan 7 item raashin ka kooban sida burka bariiska sonkorta baastada timirta caanaha iyo saliidda waxa weeye qof walba wixii baanu siinay marka ayaguna way ka mahadinayaan ilaahayna way ku mahadiyeen dadkii u soo dhiibeyna way u ducaynayaan annaguna way idin ducaynaynaa ma ahan sanadkii koobaad waa sanadkii shanaad waxaana rajaynaynaa inaad u sii wadaan oo aan sanadkan ku dayna aad u sii wadaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala sadaqadeena ha aqbalo musaacadadan ay noo keeneen saldanada Cumaan waa u mahadcelinaynaa saldanada Cumaan waa uga mahadcelinaynaa musaacadadan ay ku soo aadiyeen xilliga Ramadaanka dadkan barakacayaasha oo xoolaha ay dhaafeen oo ay waliba musaacadadaas oo aan hadda bas ahayn marar badan ay keeneen waa u mahadcelinaynaa insha Allah musaacadadas ay noo keeneen waa uga mahadcelinaynaa saldanada Cumaan iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda waa uga mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaankooda xasanaadka uu kabo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala say walaalahooda ugu naxariisteen Allah ugu naxariisto gargaarka aad noo soo dhiibteenna waana soo gaaray haddaan nahay guddiga gurmadka abaaraha degmada Dowle iyo wakiiladii waday raashinka waa soo gaarsiiyeen waadna arkaysaan indhiinaad ku arkaysaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala in kasta oo ka shaqaysa Ilaahay ka jazeeyo abaalmarin janno Ilaahay ha ku siiyo subxaanahu wa ta'ala Ilaahay khayr farabadan ha siiyo bisha Ramadaan baan ku jirnaa Ilaahay ha u dambi dhaafo waxaan kale kiish bur kiish bariis kiish bur afar xabo saliid timir kartoon baasta shan saliid hal maarta aan gasa waxaan u maadanayaa dawladda Oman liira sharafta leh oo waxaan uga madanayaa soonka dartiisa falligiisi waxaan u maan siinayaa in dawladda Allah raajiyo kor Allah ka dhigo muslimiinta kor Allah ka dhigo ilaahay muslimka kor Allah ka dhigo inta muslimka kor Allah ka dhigo baashi deeq macallin Universal TV Muqdisho halka daawada warkaas aad kala socotaan waa xarunta telefishinka caalamiga Universal ee magaalada Hargeysa wararka kale ee wariyaashada noo soo dirayaan waxa kamid
إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته مرحوم حاج عبد الرحمن إليه يا مانتا أسقرا لوغو سميي مقالة بورمي عاصمة قبل كاوضل عاسكن قرن وكسو قيب قلي مدحوينة كإيجان كسومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الشير السيدي أيا غورين وحا تاسي تيرانيا لو ديري قويسكي يا قرابدي وكبحي الله نحرسته مرحوم حاج عبد الرحمن إليه qaar ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland asxaabta siyaasadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan inna ilaahi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun Xaaj Cabdirahmaan Ciise Allahu naxariisto tarakadii ehelku ka tagay sabir iyo Allah ka siiyo fagi taariikhdiisa ay badiyay baa jooga Sheekh Cabdullaahi rag badan baa jooga laakiin waxaan qareenaa inuu ahaa muxsin waxaan qareenaa inuu samafala ahaa inna raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta halkan waxaan joognaa aasga Allah naxariistay Xaaj Cabdirahmaan Ciise samafala weyn waa ka garata maanta aaskiisa sabab soo qayb galay baad garata waxaan leenahay marxuumka Xaaj Cabdirahmaan Ciise Allah naxariistiisa ka waraabiyo in khayrka u jibaaran buu ahaa nin wuxuu ahaa dadka gobolka degan wax garadkiisu kolkay kaalin uga baahdaan aqalkiisa fadhiisanayo marti qaadayay Cabdirahmaan Ciise Allah uu naxariisto qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay sabriga Allah ka siiyo xaji wuxuu ahaa dadka farakutiriska ee sida dahabku ciid aan uga muuqan qofka midakarkii saas bulshada ku yahay waxaan leenahay ilaahay qabriga uu nuuro qiyaamahana uu shafeeco qaado awlaadiisii ehelkiisiina samir jamiila Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah uu naxariisto Xaaji Cabdirahmaan Ciise naxariistii janna Allah ka waraabiyo ehelkiisii iyo qaraabadiisii oo inamadiisii iyo hablihii uu ka tagay iyo xaaskiisii gobolka awdal iyo dhammaan qaranka Soomaaliland ba sabir iyo iimaan Allah ka siiyo ninba maalin ayuu baxayaa Cabdirahmaan Ibrahim Wabari oo ku magacleer Cabdirahmaan Ciise Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo dhammaan eheladiisa iyo aaski Xaaji Cabdirahmaan Ibrahim Allah naxariisto isagaa dhintay uu tagay waqtigiisii nin qaaliya yaa gobolka iyo Soomaaliland ka baxay laakiin nafna joogi mayso oo aan ognahay ilaahay ha naxariisto ilaahay raaji'uun كرير قصة الموت إلهي نحرستي جناح كورابيو حاج عبد الرحمن إبراهيم وبرع عليه وحكمت هذا الصومالي لان وحكمت هذا قبل كاودل وحكمت هذا مقالة بورمه رمين عائلة ديسي يعرضي سي لديسينا لا هو حنو قبرينا إنه سبرية إيمان كسيو وأنت وكنت أفرت اليلح صدق وأنا أقول دري وحيصير درينا يهل مرو أو تبتري الله نحرس جنة الله عبد الرحمن هو أو ثمان فرشة كلمة هين وراقف وجه شخصية بدن وراقف كان عصراء وراقف علماء وراقف مارتي مدح خميرة وقر شخصية رئيس البلاد كلية مسكين جري سواء فلوي بوهارتي من أمة صرفرة مجال الجو تعود وتكثر مانتا على السوق وبكري إلهي وحنا نقول تين العين وفركي بناي حساس وسمي إلهي ميزان حساس هو ضرب إلهي سبري من دمتها نقصيه استجمع محارس جلال الله كورابيو إنا لله وإنا إليه راجعون حسين عطية جامعة الفيشن عالم يونيفرسال مقالة
gudoomiyaha mucaaradka ee Russia ayaa xabsiga la dhigay kadib markii lagu soo eedeeyay inuu ka dambeeyay dibadbaxyo maalmihii u dambeysay ka dhacayay wadanka Russia si faafahinta warkan inoogu diyaariyo wariyaheenna Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige iyadoo maalnimadii shalay guud ahaanba dalka Russia ay ka dhaceen soo baxyo xoog leh oo ay mucaaradku sameeyeen ayna uga soo horjeedaan xukuumadda Vladimir Putin ay ku eedeynayaan inay sameysay waxyaabo musuqmaasuq iyo isdabamarina ayaa dhinaca kale waxa xabsiyada la dhigay dad aad u fara badan magaalooyinka waaweyn iyo kuwa kaleba ninka isagu loo tirinayo inuu ka dambeeyo abaabulka soo baxyada dalka Russia oo lagu magacaabo Alexei Navalny ayaa isaga laftiisa gurigiisa aroornimadii shalay markuu ka soo baxay xabsiga la dhigay kadibna lagu xukumay 30 maalmood arrinkan isaga ah waxa uu noqday markii labaad oo soo baxyo xoog leh ay dhacaan tan iyo bishii Maarch iyadoo uu abaabulay Alexei Navalny oo uu ku tilmaamayo inay tahay arrinta Russia ka jirta mid aan indhaha laga qarsan karin waxaa magaalada Moscow laga xiray dad aad u fara badan oo boqolaala iyo magaalada kale ee Pittsburgh oo labaduba kamid ah magaalooyinka waaweyn ee sida aadka la isugu soo baxay dadka mudaharaada iyo maalnimadii shalay waxay ahaayeen dad watay boorar ay ku qoran yihiin qaabka iyo sida wax u socdaan maqumana waxaan u baahanahay Russia oo aan Vladimir Putin lahayn iyo arrimo kale waxay ku soo beegeen soo baxan xoog leh ee dhinaca mucaaradnimada iyo ka hortagga musuqmaasuqa sida ay sheegayaan mucaaradku iyadoo loo dabaaldegayay maalinta Russia oo ah maalinta loo aqoonsan yahay Russia inay noqotay Russia madax banaan tan iyo 1990kii oo xilligaasi kadib ay ahayd xilligii Soviyetkii hore oo markaasi burburay ciidamada booliska ay iska hor yimaadeen dadka soo baxaya oo dhalinyaro u badnaa kadibna waxa la arkayay iyadoo boolisku ay dadka garbaduub u qabanayaan kadibna ay basaskooda saarayaan dad aan kun ka yarayn ayaa la xiray maalinimadii shalay waxay dadka mucaaradka ay ku eedeynayaan madaxweynaha dalka Vladimir Putin iyo ra'iisul wasaarihiisa Dmitry Medvedev inay yihiin kuwo si gaar ah u adeegsaday marka la fiiriyo hantida dalka Russia iyadoo waliba ra'iisul wasaaraha loo aaneynayo in waxyaabo gaar ah uu yeeshay oo ka gatay hantida dalka Russia ninkan isaga oo 41 jir ee lagu magacaabo Alexei Navalny oo ninka loo tirinayo inuu mucaaradka hogaamiye u yahay ayaa waxa uu qoldareynaya amaba uu ka fakarayaa sanadka soo socda doorashooyinka ka dhici doona dalka Russia inuu ka qayb galo tartanka madaxtinimada kooxaha u dooda xuquuqda bini'aadamka ayaa cambaareeyay falalka booliska Russia ay ku kaceen oo ay boqolaalka ruux ay xabsiyada u tilmaameen amaba ay geliyeen taasoo macnaheedu uu yahay in ay doonayaan dadku inay xor noqdaan codkoodana ay dhiibtaan sida ay ku doodayaan qoliyaha xuquuqda bini'aadamka laakiin taa bedelkeeda ciidamada booliska Russia ma aanay aqbalin dhagahana jalaq uma siin ee shaqadii loo diray ay qabsadeen oo ay boqolaal xabsiyada ay dhigeen maalinimadii shalay ra'iisul wasaaraha wadanka Britain ayaa kulan la qaadatay hogaamiyaha xisbi kale oo ay doonayaan inay wada dhisaan dawladda kadib markii dhawaan ay weeday badi kuraastii doorashadii ka dhacday dalka Britain Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige ayaa faafahinta warkan inoo diyaariyay mar kale iyadoo doorashooyinkii 8 June ka dhacay wadanka Britain aanu xisbiga conservative-ka helin kuraastii ugu badneed oo ay lumiyeen ilaa 8 kursi ayaa waxa caqabad ku noqotay ra'iisul wasaaradii Theresa May ee iyadu ku baaqday doorashooyinkan in ay culays ku noqoto siday dawlad ku dhisi lahayd maxaa yeelay ma aanay gaarin heerkii dawlad ay ku dhisi lahayd marka la fiiriyo kuraastii loo baahnaa taasi waxay keentay Theresa May inay u baahato xisbiyada kale ee iyagu haysta tirooyinka yaryar in qaar kamid ay isxixotaan oo ay sheekaystaan si markaasi suurtagal ay ugu noqoto inay iyagoo wadaaga ay wax dhisaan maanta oo talaado ahayd ayaa waxay la kulantay Arlene Foster oo ah gudoomiyaha xisbiga waqooyiga Ireland ee ah DUP waxay isla meel dhigeen ma aanay jirin laakiin waxay ka dhawaajisay Theresa May oo ay u sheegtay Arlene Foster in aysan lahaa karin iyagu haba yaraatee diidmo siyaasadaha qaar marka laga hadlayo iyo arrimaha qaar ee dhinaca baarlamaanka arrintaasi waxaad moodaa inay muujinayaan xisbiga DUP inaanay u cuntamin maadaama iyagu ay meeshii joogayaan in haddana la gooniyeeyo oo la faquuqa inay tahay khalad baarlamaanka Westminster ayaa xubnihiisu ay maalinkii maanta isu soo laabanayeen oo talaado ah iyadoo kadibna ay dooranayeen afhayeenkii isagu baarlamaanka u noqon lahaa afhayeen ragga kale ee Lordska lagu magacaabo ayaa iyagana la dhaarinaya isla maanta arrimaha haddaba Theresa May hor yaalla ma aha arrimo sahlan iyadoo la hadlaysay maalinimadii Isniintii ragga sarsare ee xisbiga conservative-ka ayay waxa ay qiratay inay mas'uul ka ahayd guuldarrada ka dhacday doorashooyinkii 8 June
waxay tiri dhibtan maantana haysata anoo Theresa May ayaa idin dhex dhigay oo mas'uulka ah anaana laga rabaa inaan idin ka saaro ee raaligelin hal qaato. Theresa May markii hore ugu baaqday in doorashooyinkan ay dhacaan ayaa aad loo eedeeyo la cambaareeyo waxa lagu yiri maxaa kalifay in adigoo ra'iisul wasaarahagii haysta aad iminka ku baaqdid doorasho aadan hubin in la guuleysan doonayo in kale. taasna waxaad moodaa in looga saxsanaa markii la arkay natiijada iyo sida ay xisbiga Labourka ugu biyo keeneen Theresa May xisbigeeda Conservative-ka. haddaba waxaa la filayaa Theresa May iyo Arlene Foster oo ah xisbiga Conservative-ka hogaamiyihiisa iyo xisbiga kale DUP ugu dambaysta waxyaabaha ay isla gaaraan iyo hadday labada haween isgartaan oo ay danta dalka ay ka wada shaqeeyaan iyo haddii ay ku kala tagaan. intaas ayaan daawaday guud ahaanba ku soo afmeerna war wixii dalka gudihiisa iyo dibadiisaba naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga Universal aniga dhammaan khiyaartii igala qayb qaadatay tabinta warkaasi inta warkan xigaan ku kulmi doono dhamaantii waxaan ku dhaafanaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi